إثيوبيانكي وإيابيهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا صاحب بيال فضلا هذا تقول عصب تهاي وحن كعود سنة أنا جنال كان سبسكرايب سارتو مقال كان هذا لايك سارتو وما سنتها إثيوبيانكي وإيابيهن نمانكي إثيوبيانكا أها وإيابيهن يدولة إثيوبيا بقى وحين كيابيهن صوماليا وضناها أيينا فرتك وحيان هذا بقى سيدي وحولعين مالميه لصور عافي مسؤولين تقص الرئيس إثيوبيا وح أي ماك توس وقادنيين مدحوينها الصومالي حسن الشيخ محمود إذا عادها ولا صفر سنة أسبوع وحل هذليا ويران لما مر أيال هذليا ما سدح مر بالهذليا شن مر أما مالين كسر إذا عدوا على تاجين نيك وقص الرئيس إن عيدا كإثيوبيا إن مدحده وقع اللي يرادو برهان الجولة حسن الشيخ ورط الدبر نكتبه هذا الكساء وحوليه هي حسن الشيخ نيك اللي يرادو وحاول ماشي كمهايو حمر كليه أيو مدحوينك يا أو معمولا أوكي مركم حكي يا بيهن سيدا وده أوجين شليتو وحا مقالة مقدشو كدولي مدحوينها الصومالي حسن الشيخ محمود وحا أونا كدجي أسمرة أو عاصمة الدولة إريتريا هالكاس وكسو دوي مدحوينها إريتريا السياس أفور وكسو دوي ما أنت إن هالكا مدحوينها مصر السيسي إنه أسمرة إيمان دونه هالكانوا وكدع دونه شر سد حق سود وصوماليا إريتريا هي مصر maxay isku hayaan marka Soomaaliya waa la gartay Soomaaliya Itoobiya waxa isku hayaan waligoodba waxa ay isku hayn jireen waxa weeye qadiyad dhul la xiriirta haddana faragelin kale ayaa imaatay oo badii ay u socotaa taas ay Soomaaliya isku hayaan iyo maaragtay Itoobiya Eritrea maxay isku hayaan Eritrea sidoo kale waxa isku hayaan dhul baa la isku hayaa 30 sano in ka badan ayaa dhul la isku haystay markii hore Eritrea Itoobiya ay ka go'day 30 sano ka hor dhul baa la isku haystay marka ilaa hadda dhulkii baa la isku haystaa iyo sidoo kale bad Itoobiya markii horeeto bad way lahaan jirtay oo bad Eritrea intii ay kamid ahayd ayay bad lahaan jirtay laakiin Eritrea haday ka go'day bad ma laha yaan Eritrea dhul baa la isku haystaa Masarna maxaa la isku haystaa Masarna biyo xireenka Niil ay ka sameysay Itoobiya ayaa la isku haystaa okay shalay daraad waxa dhacday isgaarsiintii Itoobiya iyo Eritrea ayaa la jaray hadii qof Eritrea joogahay uu wici karay qof Itoobiya jooga guud ahaanba waa la gooyay waa la jaray xiriirkii ka dhaxeeyay labada shirkadood ee labada dhinac ka kala shaqeysa ayaa la gooyay halka marka waxa ka imaatay in aan ba joog iyo jaaq bal iska heli karin Soomaaliyana ayagana xiriirkoodu waxa uu marayaa meesha ugu xumeyd ayuu marayaa oo mar hore Masar waxa ay keentay hub aad iyo aad u fara badan gudaha Soomaaliya waxayna doonaysaa inay ciidamo keensato Soomaaliya ciidankaas oo bedeli doona kaalintii ay Itoobiya Soomaaliya ugu jirtay qaybta nabad ilaalinta iyo qolyahan maaragta admista ay ugu jirtay sidoo kale hadda Eritrea ayaa waxay African Union ka codsanaysaa in ay ciidamo ku biiriso Soomaaliya oo ay kamid noqoto ciidamada admis ay kamid noqoto hadii marka Eritrea oo cadow la ah Itoobiya iyo Masar oo cadow la ah Itoobiya oo iskaashanaya ay soo baxaan oo la keeno dhulkii Itoobiya ay joogtay awal la keeno hada u fiirso halka la keenaya waxa weeye Itoobiya dhulkii awal ay joogtay waa goboladan Gedo Bay iyo Bakool inta weeye waana inta u dhow xuduud beeraadka inta u dhow dhulkaas baa la keenaya yani Itoobiya waa iska bixisa bishan ama bisha xigta inay baxdo ayaa lagu rajooyaa Itoobiya hadii marka ay baxdo oo ciidamadan Masar iyo Eritrea ay soo galaan bedelkeeda waxa la shaka ah in si un la isku qabanayo oo la isfarasaarayo waa la shaka waa dad isku araysan oo iska soo horjeeda Itoobiya hadii xuduudda ka baxdo xuduud beeraadka ay ka baxdo xuduud beeraadka halkii ugu joogtay tagaysa qoladanna halkan baakin ka qabsanaya ama ka galayaan qoladaasna hagaas ka galayaan sikin kasta iyo waqti kasta oo ay xaaladdu sii xumaatana waxa iimaanaya dagaal ba halka ka dhici kara faraha la isaga gubtay dagaalkaas waa Eritrea iyo Soomaaliya iyo Masar oo dhinaca iyo Itoobiya oo dhinaca okay ninkan taliyaha ugu sareeya ciidanka Itoobiya oo la yiraahdo Burhaan Joola la yiraahdo maalin kasta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku eedeeyaa oo yiraahdaa Muqdisho buu ka taliyaa banaadir buu ka taliyaa buu yiraahdaa halka uu joogana maalin kasta dad baa ku dhinta laakiin isagu ma ogaba tiisa asagu xagu ka taliyaa ninkan taliyaha isku sheegayahay xagu isagu ka taliyaa horta ma garanaysaa kaliya wuxuu ka taliyaa Addis Ababa iyo dhulka Soomaalida ayuu amar sii karaa bas
cid kale oo amar sii karahay ma jirto amxaarada amar ma sii karo tigreega ma siin karo qolyahan kale yaryarka ma siin karo oromada ma siin karo intaasba ma jiro hal maaragtay maamul ama hal gobol oo uu ka talin karahay ma jirto amxaaradii baa laga yaaban yahay maalmihii ugu dambeeyay askartii federaalka sida u qabsanayeen oo ay u baabiinayeen oo hadba magaalo uga qabsanayeen hadba ciidan uga qabsanayeen waa la yaabay tigreega ma tagi karo axmaaradii ma tagi karo oromadii ma tagi karo meel uu tagi karo oo uu ka talin karahay ma jirto waa ninka leeyahay abiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya meel uu ka taliyo ma jirto Itoobiya iyada kala furatay oo kala baaba'day oo kala siibantay Soomaaliyana ka rajo fiican 100% Itoobiyana qobaradu sida ay sheegayaan bilaha soo socda ama sanadada soo socda waxay noqon doontaa meel lagu kala guuray ma aragtay Suudaan sida noqotay Suudaan dalka Suudaan sida noqday ma aragtay sida loo burburiyay ma aragtay kaabayaashiisa dhaqaale sida ay u burbureen ma aragtay sida jabhaduhu uga dhasheen ma aragtay tabtaas ayay Itoobiya noqon doontaa caasimadeeda noqon doontaa inta kale gobolada kale waaba yihiin moogta sidaas amal bay Itoobiya noqon doontaa ha marka yaab iyo amakaag baa ka soo haray marka saddex quwadood oo awoodooda leh ay inta shireen yiraahdeen haye dhibaato kasta oo Itoobiya ka imaata waa iska kaashanayna hadda ogaawo Itoobiyaankaas Soomaalida bisaabo ku filanba Itoobiyaanka sida u qeeqeelinaya Soomaalida bisaabo ku filan halka nin Soomaaliga ah 100 Oromo ah ayuu u dhigmaa waa fulayeen waxay og yihiin malahan Eritrea oo 2 milyan ah hada 2 milyan ayaa Itoobiya oo dhanka adag ba hadii maaragtay ay isfara saaran iyada ka adag Masarna iska badaa quwadeeda gantaalaha hadii ay ka soo ridaan maaragtay caasimadda Masar hadii laga soo rido Addis Ababa ay duqeyn karaan biyo xireenka aad arkaysan Itoobiya caadi loo duqeyn karaa Masar way duqeyn kartaa laakiin waxyaabaha laga cabsi qabaa waxa weeye biyo xireenkaas hadii tusaale operation dumin ah lagu fuliyo biyaha xooligooda waxa laga yaabaa in ay magaalooyin dhan goostaan oo ay jajabiyaan baa laga yaabaa oo Masar ku yaala oo Suudaan ku yaala waa ka marka ninkan taliyaha ah hadalka maba kala joojinayaba maagiisu waxa uu noqday kii ciyaalkii maaragtay TikTok isku karbaashaya amal ayuu noqday ilaa haddana dawladda Soomaaliya ma u jawaabtaba qofkii u dhigmi lahaa xataa uma jawaabo taliyaha ciidanka xoog uma jawaabo qof kale u jawaabo ma jiro iska hadal marka hadalada soo wada dheh okay waxa la sugayaa waxa weeye Asmara in hadda waxa jooga madaxweynaha hadda waxa jooga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siyaas Afwerki waxa la sugayaa inuu imaado madaxweynaha Masar Abdulaziz Al-Sisi inuu imaado ayaa la sugayaa wixii ka soo baxa wana isla arkaynaa وانا idila wadaagi doona insha Allah ta'ala aad bad ma santiin hayloobin inaad subscribe dhahdo channel kan sidoo kalena aad like saarto muuqaalkan wassalaamu alaykum ra'yigaaga inaad ka dhibato